بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel walbo joogtiin iyo suul baad inoo maqlaysiin ku soo dhawaada sheekadeen oo xiliyadan oo kale aad inooga barateen inaan in la wadaagno qiso iyo waano qalbi taabada taas oo si gaar ah ugu duurxelayno in dhageystayaashannada aan u soo diyaarino waxyaabaha ay si gaarka u daneynayaan ama ay wax ka baran karaan sheekadannada waxay ku saabsanaan doontaa gabadhii aabaheed ka xishootay haddaba waa maxay gabadha aabaheed ka xishootay maxaa keenay in gabadhu ay aabaheed ka xishooto waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan sheekada qaybaheeda ugu muhiimsan sheekada wiilkii hooyadii iloobay haddii aad qaybtii hore ee qisadannada aad ku dhageysateen wiilkii saboolka ahaa ee hooyadii badbaadiyey sheekadaana waxaan ku soo qaadanaynaa wiilkii hooyadii iloobay haddaba sideebuu wiil u iloobi karaa hooyadii sideysa gabar uga xishoo kartaa aabaheed waxaad uga bogan doontiin barnaamijkeenna maanta ama qisadeenna oo aad kala socotaan qisa waana TV oo aad ka heli doontaan sheekooyin xiiso leh waa hagaaga fadlan subscribe laag iyo sheerna siiya daawadayaal waadna ku mahadsantihiin garab istaagiina haddii aynu daafurno qisadeenna maanta gabadhii aabaheed ka xishootay magaalo weyn ayaa waxaa ku nooleed gabar caqli badneed oo jaamacad dhigan jirtay waxay ahayd ardayada ugu sarreysa fasalkeeda jaamacaddana waxay ahayd gabar si weyn looga ixtiraamo dadka badankooduna way ku faani jireen gabadhaas iyana waxay ku faani jirtay aabaheed iyada oo sheegaysa inay isaga ka keentay aqoonta iyo xirfadda ay jaamacadda uga soo ifbaxday laakiin qalbigeeda waxaa ku jiray sir aysan cidna la ogeyn marka ay la hadlayso bulshada oo ay la doodayso waxay ka xishoo jirtay aabaheed haddaba sidee bay arrintaasi u dhacday aabaheed wuxuu ahaa nin shaqaale ka shaqeeya kuwa guryaha dhisa ka mid ah maalin kasta qorraxda kulul ayuu dhagaxyo ku qaadi jiray sibir iyo shamiito ayuu gacmihiisa ku qasi jiray waxaa ka muuqan jiray duruuf adag oo dadku aysan malaynayn gabadha kaalintan gelaysa inuu yahay ninka ay garanayaan aabaheed dharkiisu mar walba wuxuu ahaa mid uu ka muuqdo rafaad aad u fara badan maadaama dharka dadka dhismaha ka shaqeeya saad aragteen uu yahay dhar aad u baaba'san gabadha marka ay saaxiibadeeda aragto aabaheed qalbigeedu waa u gariiri jiray waxaana ay sheegi jirtay in ay xilliga kan iyadu halka kaliya ay ku tiirsan tahay taa aabaheed uuna yahay nin aqoon-yahana oo si weyn wax u garanaya waxay is oran jirtay aabbaha maalinta la ogaado waa maalinta ugu dambeysa ee sirtaada ay dadkani garan doonaan maxay dadku ay dhihi doonaan ayay is oran jirtay maalintii qalinjebinta ayay timid gabadhii jaamacadda waxay ka codsatay dabaaldeg weyn oo dhacayay jaamacadda dad badan ayaana yimid iyaga oo xiran dharka aad u qurux badan gabadhii waxay rajaynaysay in aabaheed uusan imaan laakiin albaabka ayaa si tartiib ah looga soo furay waana uu ka soo galay nin daalan oo dharkiisa shaqada wata oo aad u boor badan ayaa soo muuqday wuxuuna ahaa aabaheed markii ay aragtay wejigeedii waa uu isbedelay waxay dareentay xishood aad u culus aabaheed isaga oo faraxsan ayuu meel fog ka eegay gabadhiisa indhihiisa waxaa ka soo muuqatay farxad iyo sidoo kale jacayl muddo yar kadib macallimiintii ayaa weydiiyeen magaca gabadha uu doonayo inuu kala qayb galo munaasabadeeda uuna doonayo inuu halkani kula damaashaado dadkii oo dhan
ayaa sacabtumay markii uu sheegay gabadha magaceeda. Gabadhii waxa ay ku dhaqaaqday masraxa iyada oo faraxsan, laakiin ka hor inta abaalmarinta aan la siin macallinka ayaa waxa uu yidhi, gabadhan maanta halkan taagan waxaa waxbarashadeeda bixiyey nin gacmihiisa dildillaaceen, dharkiisuna uu aad u liito, dhabarkiisii uu qalloocmay shaqo adag darteed, si gabadhiisa ay u iftiinto. hoolkii oo dhan wuu aamusay. macallinkii wuxuu farta ku taagay aabbahii gabadha dhalay. halyeyga dhabta ah waa ninkaas, ayuu yidhi markii gabadha ay masraxa soo istaagtay. dadkii oo dhan waxay u jeesteen dhinaca aabbaheed gabadha. gabadha indhaheeda ilmo ayaa ku soo daadatay. markii ugu horreysay ayay si dhab ah u eegtay gacmaha aabbaheed. gacmo aad u dildillaacsan oo baaba'san ayay ahaayeen gacmaha aabbaheed uu ku soo baray jaamacadda. gacmo dhaawacan ayuu la yimid munaasabadda maadaama si adag uu dhagax ugu jebinayay. laakiin gacmahaas ayaa dhisay mustaqbalkeeda iyada. waxay ka degtay masraxa iyada oo ooyeysa, kadibna si adag ayay aabbaheed u habsiisay. waxay ku tiri, aabbo iga raalli noqo, waxaan ka xishooday qofkii ugu weynaa noloshayda. aabbahay ahaa inaan si tartiib tartiiba aan dadka hortooda aan ugu sheego qofka saxda uu yahay, balse madaxayga ayaa i tusiyey taas, mar dambana uma laaban doono. waxay ku tiri gabdhihii masraxa joogay, sifo kasta oo aabbaha leeyahay kufaan, waayo waa midka keliya ee ku geeyey halka aad taagan tahay. anigu waxaan lahaa hooyo iyo aabbo si weyn ii garab taagnaa, uguna gacan siinayay inaan maanta noqdo qofta aan ahay. aabbahay gacantiisa nasiib darro maanta ka hor maan eegin, balse maanta markaan eegay aad ayaan u naxay, qalbiga ayaana i dilaacay. imau tusin dhibka aabbahay, laakiin isagoo qoslaya ayuu iga dhiibayay lacagta jaamacadda iyo midda iskuulka, isna waa dhiigaysa gacantiisu mar walba. aabbo iga raalli noqo, ayay mar kale ku tiri iyadoo xisheenaysa. sababtoo ah waxay ogaadeen dhammaan waalidiinta qaar oo halkaasi ku sugnaa inay yihiin dad halbowlo u ah ilmahooda, laakiin ay jiraan kuwa naftooda u huray carruurtooda oo xaalad adag wax ku baraya. weliba waalidiinta qaarkood goobta ku sugnaa ayaa gabdhahooda ahaayeen kuwa ka kaalin hooseeya gabadhan oo sida adag wax lagu soo baray. waana muhiima ayaa laga jeediya goobtaas, weligaa ha iska xishoon. waalidka waxaa laga yaabaa in gacmahoodu daaleen, laakiin daalkaas ayaa adiga ku gaarsiiyey meesha aad maanta joogto. guushaada waxaa gadaal ka taagan hurdo la-aanna ah, dhib iyo dhibaato maray, jaceyl badan kuu samaynaya, qiimo sare kuu yeelaya. waa aabbaha iyo hooyada, ayay ku hadleen waalidiintii halkaasi joogta qaarkood. weli xaaladdu way sii socotay. goobta ayaa laga soo gudbiyey sheekooyin kale oo iyana muujinayay muhiimadda ay leedahay in carruurta la dareensiiyo shaqooyinka adag iyo sida harjadka ah ee waalidiintu ay wax ku barayaan. markaas kadibna ardadii halkaa ku sugnayd waxay gabadha ka barteen marnaba aabbahood iyo hooyadood sifo kasta uu yahay inay bulshadooda la hor yimaadaan, iyadu maadaama ay ka cabsanaysay qofta kaalintaa weyn gelaysa inay si cad u sheegto qofka uu aabbaheed yahay. waa hagaag, weli waxaan ku guda jirnaa sheekadeenna ama qisadeenna maante. sheekadii wiilkii hooyadii badbaadiyey ayaan hore u soo qaadanay, balse sheekadan waxaa inoogu jirta ama qisadan
sheeko ku saabsan wiilkii hooyadii iloobay. sidee bay u dhacday inuu wiil hooyadii iloobo? habeen qabow uu jiro, roob daranna uu da'ayay magaalada dusheeda, oo roobkaasu ka da'ayay. dadku waxa ay ku jireen guryahooda, qaarna waxa ay u sii ordayeen qoosaskooda iyaga oo qoslaya, doonayana inay ka xaroodaan roobka qabowgiisa. laakiin geeska waddada waxaa fadhiyey wiil yar, kaas oo hooyadii oo duq ah keligeed kursi ku fadhida kaga soo tegay halkii ay fadhiday. indhaheeda albaabka ayay eegayeen. hooyada waxay sugaysay wiilkeeda. saacaddu waxay ahayd hameen barkii, laakiin weli ma imaan wiilka. hooyadaas magaceedu wuxuu ahaa xaawo. waxay ahayd haweeney cimrigeedu uu dhan yahay ku dhowaad in ka badan 60 sano. markuu yaraa, hameen kasta sariirta ayay agteeda soo dhigi jirtay, waxayna fiirin jirtay inuu soo seexday, inuu hurdo beelay, iyo sidoo kale hadduu xanuunsan yahay. intaba way la soo kacaakaftay. waxay la soo martay xaalad adag, weliba iyadoo ku soo korinaysay heer agoonnimo ah. waa hagaag, markii uu xanuunsado iyada ayaa qaadi jirtay oo gey jirtay goob ay daawo kala raadiso. markuu gaajoodo iyada ayaa cunto u raadin jirtay, iyada oo mararka qaar aan haynin waxay cunto ugu samayso. wax walba oo ay u samayn karto ayay u samayn jirtay, sabab kasta ha ku keentee. wiilkii mustaqbalka wanaagsan lahaa oo hooyadii ay sidaa ugu dadaashay, muxuu isagu aakhirkii sameeyey? wuxuu noqday wiil aan ka soo bixin waajibkii hor yaallay ee looga baahnaa inuu guto, oo hooyadu ay ka sugaysay maalin uun inay ku gudubto. sannado ayaa dhaafay. wiilkii yaraa waxa uu noqday nin shaqo weyn helay oo shaqaysta, lacag ayuuna yeeshay. gaari qurux badan ayuu iibsaday. dadkii oo dhan waxay ku oran jireen waad guulaysatay. laakiin hal qof ayuu si tartiib tartiiba u ilaabay, qoftaas oo noqotay hooyadii. markii hore wuxuu soo booqan jiray hooyadii, kadibna booqashooyinkii way ka yaraadeen. taleefanadiisa wuu qaban waayey hooyadu marka ay soo wacdo, ilaa uu ugu dambayntii hooyadiis waxa ay noqotay qof had iyo jeer la sugta bal inuu isagu soo xiriiriyo. maalin maalmaha ka mid a, hooyadii ayaa taleefanka qaaday, iyadoo oo codkeeda si daciif uu yahay ay la hadlayso. waxay ku tiri, wiilkaygiiyow ma ii soo noqon kartaa maantay? ayay ku tiri. wiilkii oo mashquul ahaa ayaa yidhi, hooyo, waan shaqaynayaa, maalin kale ayaan kuu imaan doonaa. hooyadii way aamustay, kadibna waxay tiri, waxay ku celcelinaysay hal magac oo keliya, wiilkayga, wiilkayga, wiilkayga. laakiin wiilkii taleefankiisa wuu ka mashquulsanaa, wuu qaba diiday. saacado kadib waxaa u soo dhacay wicitaan. hooyada xaaladdeeda ma fiicna, dhaqso u imaaw. qalbigiisa si lama filaan ah ayuu u gariiray. wuxuu ku orday gaarigiisa si waalli ah. markuu cisbitaalka gaaray, wax walba way aamusnaayeen. dhakhtarkii ayaa si tartiiba u yidhi, waan ka xunnahay. adduunka oo dhan ayaa indhihiisa mugdi noqday. wuxuu galay qolka hooyadiis. waxay ahayd mid indhaha xiran. gacanteeda qabow ayuu gacantiisa saaray. markii ugu horreysay ayuu dareemay cabsi uu weligiis dareemin. miiska dhinaciisa yiilay
waxaa saarnaa warqad yar. gacmo gariiraya ayuu ku furay. waxaa ku qornaa, wiilkaygiiow, haddii aad warqaddan akhrinayso waxaa laga yaabaa inaan kaa fogahay, marna kuma necbi. mashquulkaaga ayaa aad iga kaa fogeeyey, laakiin anigu waxaan jeclaa inaad mar walba i ag joogto. waxaan ku faraxsanaa inaad guulaysatay, laakiin qalbigayga hal murugo ayaa ku jirtay, inaan mar dambe maqli waayo codkaaga oo leh, hooyo sidee tahay. ilmo kulul ayaa ka da'day indhihiisa. warqaddii ayuu sii akhriyey. haddii aad maalin aabba noqoto, xasuusnaaw in carruurtaadu aysan weligaa kaa weynaan doonin. qalbigaaga sidaasi oo kale, adiguna weligaa kama weynaan doontid qalbigayga. wiilkii dhulka ayuu jilibka joogsaday, isaga oo ooyaya sidii ilmo yar. lacagtii, shaqadii iyo guushii midna ma soo celin karin hal daqiiqo oo uu hooyadii la qaato. sannado kadib, mar kasta uu arko qof hooyadii wacaya, indhihiisa ilmo ayaa ka imaan jirtay, sababtoo ah waxa uu bartay cashar aad u xanuun badan. qaar ka mid ah dadka noloshooda ugu muhiimsanaa waxaad ku qiimayn doontaa sida ay ula noolaayeen hooyadood amay uga warqabeen. waanada qalbi taabadka ee aan ku soo gebangebeynayno qisadeenna maanta ayaa waxay tahay waano qalbi taabanaysa. ha ka mashquulin ilaa aad ilowdo dadkii kuu soo jeeday hamiino badan adiga dartaa. hooyo iyo aabbo ma sugayaan lacagtaada, waxa ay sugayaan waqtiga iyo soo kale jaceylkaaga. maalin ayaad imaan karta oo aad rabto inaad maqasho cod qof, laakiin aadan mar dambe maqli karin. dadka ku jecel inta ay nool yihiin qiimee. aabbaha sababtoo ah berri mararka qaar ayaa suurtagal ah inaad weyso codkii ku jeclaa. markaad eegto daawada qisadan, maxaa kaaga baxay adiga? gabadhii aqoonta laheyd, jaamacadda dhiganaysay, aabbaheed oo gacmaha ka dhiigaya, aad u dhibaataysan, dharkiisu oo booraystay oo waxbarayay, noqotay gabadha ugu sarraysa jaamacadda, kaalinta gashay, shaqadana dib u heshay, laakiin isku dayda inay dadka ka qariso aabbaheed. aakhirkiina macallimiintii iyo maamulkii ay dhammaan u qorin inuu ahaa halyeega dhabtaah ku oyday xafladda munaasabadeeda. maxaa kaaga baxay? miyay sax ahayd gabadhaas inay aabbaheed qariso oo ay isku daydo inaysan dadka u barin si toosa? maxaa ku qasba ayay kula tahay gabadhaasi go-aankaas ay qaadatay? ma ku saxneed mase way ku khaldaneed? aragtideedana sii. wahagaag, haddaan eegna sheekada qaybteeda kale, wiilkii hooyadii iloobay. ma mudan tahay hooyadu shaqo kasta oo leedahay iyo meel kasta oo joogto inaad hilmaanto oo aad ka fogaato? maxay kuu gashaa inaad balanbasho kadib markii hooyada oo dayacday ay dhimato inaad ooyso ama aad baroorato? ma og tahay in hooyada iyo aabbaha adiga maanta haddaad tahay qof muuqda inay halka aad joogto iyagoo ku soo gaarsiiyeen? ma og tahay xoogga aad leedahay iyo dhaqaalaha aad haysato inay iyaga ay tahay jirkooda wax ka yimid, ayna sii baaba'ayaan, adiguna aad tahay qof la sii baranayo? ilmaha awoodda yeesha, dhaqaalaha hela, waxbarta, waalidku markay ku soo raftaan kadib maxaa la gudboon? aragtidaada inoogu reeb commentiga. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow, intaas ayaan ku soo afmeeraynaa qisadeenni maanta oo aan ku soo qaadanay gabadhii aabbaheed ka xishootay iyo wiilkii hooyadiis iloobay. intaan mar kale kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan subscribe, like iyo share na siiya daawadayaal, waadna mahadsantihiin.